munaasabadan ayaa qaybka gunaanadkii dabaaldegyadii loo sameynayay toddobaadkii xurriyadda oo kulmisay 26 Juun iyo 1 Luulyo kana soconaya guud ahaan gobolada dalka ayaa lagu qabtay xarunta maamulka ee degmada Boondheere. Kooxda fanka ee degmada Boondheere ayaa soo bandhigtay heeso iyo ciyaaraha hidaha ee dhaqanka kuwaasoo ka turjumaya qiimaha xurriyadda ay leedahay. Gudoomiyaha degmada Boondheere Zainab Yuusuf Weliye ayaa sheegtay in maalmaha Soomaalidu ay ku weyn tahay. dhammaan gayiga Soomaaliyeed xornimadii oo helay maalintii calanka la suray maxaan ku yiraahdaa gayiga Soomaaliya ee gumeystihii maxay ahayd aanu iska saarnay ayaan u dabaaldegaynay. waa maalin farxad leh, waa maalin aan ka xurownay maxay ahayd caburkii iyo dhibaatadii iyo gumeysigii. xildhibaan Maxamed Axmed Abdudoon oo ku hadlayay magaca xildhibaanada ayaa ka sheekeeyay taariikhda 26 Juun iyo 1 Luulyo. 26 Juun iyo 1 Juulaay waxaan u maleynayaa xuska maalmahan in badan ayaa laga soo sheekeynayay. 26 Juun waa maalintii ay xoroobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliland. halganka Soomaaliland waxaa hogaaminayay ururkii lagu magacaabi jiray SNL. waxay ku guuleysteen inay ka xoroobaan gumeystihii Ingiriiska 26 Juun 1960 halka 1 Juulaay lagu xasuusto inay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriisow ayaa ku amaanay shacabka gobolka Banaadir kaalinta ay ka qaateen dabaaldegyadii maalmaha xurriyadda. waxaana muuqata isbuuc inuu ahaa isbuucii la tijaabiyey la arkay bulshada awoodooda. waxaan aad ugu faraxsannahay caawa in halkan Boondheere aan isugu nimaadno xafladan annagoo ujeedadeena tahay inaan shacabka Soomaaliyeed u mahad celinno sida quruxda badneed oo ay maalmaha xorriyadda u weyneeyeen u xudseen. 2019 waxay noqon doontaa mid taariikhda Soomaaliya gasha. taasna waxaa mahaddeeda iska leh ilaah ka sokoona waxaa leh shacabkii Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir oo muujiyey shalay Stadio Konis wacdaradii ka dhigteen waxay ahayd mid runtii aad iyo aad bulshada u soo jiidatay. waxaan idinkaga sidaa fariin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo si kale ilaaba idinkaga mahad celinaya maalmahan xorriyadda iyo sida u soo noqotay wadaniyadii Soomaalinimadii isxilqaankii iyo Soomaaliya inay wax wada qabsato. gobolada fanka abwaanadu waxay noo soo jeediyeen tixoor runtii muujinayay sida 2 sano iyo bar in bulshadu heshay nabad iyo nolol, in bulshadu 2 sano iyo bar ay heshay cadaalad, in bulshadu ay heshay 2 sano iyo bar musuqmaasuq la'aan, in bulshadu ay heshay isla xisaabtan, in bulshadu ay heshay hoggaan ujeeda u damqanaya u dhimrinaya. isla markaan waxaa muuqata waxay tahay in sharafkii karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay soo laabatay. sharafkii ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku jiri karaa waxay tahay waa midnimadeena iyo wadajirkeena. haddaan nahay shacabkii gobolka Banaadir runtii waxay weligood ba ahaayeen shacabkii midnimada iyo xorriyadda kaalin mugle ka soo qaatay. 2019 inay dib u milaacaan ay xasuustaan 59 sano ka hor. maantana aan aragnay isbuucan magaalada Muqdisho siday u shidneed oo aan arkaynay degmo walba abaabulka ka socday, oo aan arkaynay bulsho walba siday ugu diyaar garoobayeen, oo aan arkaynay bahda saxaafadda ee magaalada Muqdisho inay caalamka oo dhan tusayeen damaashaadka iyo quruxda iyo midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa inta dhimanna inaan sii dhammaystirno oo aan laga seexan. nabad iyo nolol ma kala maarmaan. waa inaan nabadda adkaysanno, waa inaan nolosheenna aan difaacanno. sida kaliya ku difaacan karnana waxay tahay annagoo isku duuban oo wada jira.